واقعي إن هدية mid ka mid ah hay'adihii ugu qaalisanaa caalamka madaxweynaha Turkiga uu siiyay ama guddoonsiiyay Ameerika dalkaasi Qatar Amir Tamim bin Hamad Al Thani hadiyadan ayaa waxay noqotay hadiyada ugu weyn ee laba shakhsi ay isisiiyaan oo madaxa tan iyo qarnigan 12aad intii ugu dambeysay waana diyaarad la yiraahdo Boeing 747 oo ku kacday ama lagu iibiyay lacag gaaraysa 400 milyan oo dollar diyaaradan ayaa waxaa la sheegay inay tahay tan mid ka mid ah diyaaradaha caalamka ugu qaalisan oo leh 6 maqsin ama 6 qol oo hurdo iyo 2 hool ama 2 meelood ama 2 xafiis oo waaweyn oo lagu shiri karo iyo sidoo kale kuraas heer raaxa ah isla markaana ah guri uu duulay sida uu sheegay afayeenka madaxtooyada dalkaasi Turkiga diyaaradan ayaa waxaa la jeclaaday in uu guddoonsiiyo Ameerika dalkaasi Amir Hamad bin Thani ayaa go'aansaday inuu gacanta u geliyo madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan oo uu ku tilmaamay inuu yahay nin hogaamiye asal ah iyo sidoo kale shakhsi la aamini karo Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ayaa la sheegay in uu arintan ay ka dhalatay kadib markii madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan la sheegay in sanadkii 2015 kal uu booqanayay magaalada Qatar uu soo tusay diyaarad tan oo kale oo uu leeyahay Amir Hamad isla markaana uu yiri madaxweynaha dalkaasi Turkiga markaas uu yiri diyaaradan aad bay qurux badan tahay anna tan oo kale ayaa iibsan doona waxaana la sheegay in hadalkaasi uu guntaday waa hogaamiyaha dalkaasi Qatar isla markaana diyaaradda uu u dalbay saaxiibkiis ayadoo hadeerto diyaaraddu ay soo caga dhigatay magaalada Istanbul arbacadii isla markaana ay ka soo degtay halkaasi sida uu sheegayo ama laga daawaday TV-ga TRT ee dalkaasi ama TV-ga ku hadla afka dawladda 400 milyan oo dollar ayay ku kacaysaa diyaaradan waxa sidoo kale arintan dhaleeceeyay mucaaradka dalkaasi Turkiga oo ku tilmaamay in aan loo baahnayn in lacag inta lagu qasiro balse afayeenka madaxtooyada ayaa ku tilmaamay hadalkaasi wax lagu qoslo maadaama lacagta aysan ahayn lacag ka timid shacabka dalkaasi Turkiga balse ay tahay hadiyad uu walaal ka mid ah yiraahdeen walaalaha islaamka iyo waliba dalalka saaxiibada ee muslimiinta uu ugu deeqay walaalkii ay yiraahdeen Turkiga madaxweynaha Turkiga horay ayaa dawladda dalkaasi Turkiga waxay u lahayd diyaaradaha waaweyn ee loo yaqaan 340 oo Airbus oo kamid ah 5 noocaas oo waaweyn ayadoo oo diyaaradii kale ee caanka ahayd ee uu lahaa mujaxanjicihii hore ee dalkaasi ama hogaamiyihii dalkaasi la oran jiray Tunisia Hussein Abidin bin Ali ay iibsatay dawladda dalkaasi Turkiga oo iyaduna gaarisay ku iibsatay lacag gaaraysa 78 milyan oo dollar arintan Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani uu gartay dalkaasi madaxweynaha dalkaasi Turkiga ayaa ku soo beegmay ayadoo dhawaan dawladda dalkaasi Qatar ay sheegtay in ay gabi ahaanba taageersan tahay isla markaana aaminsan tahay in ay Turkigu yihiin waxa ay ugu yeedheen walaal isku haleeyo daawadayaal halka nagala socotaan waa Horfadhi Media